wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka mudane Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed oo helinaya maareeyaha wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland Injineer Mawlid Nuux Ibraahin Taani ayaa ku wareejiyay gudida heer qaran ee taakulaynta suuqa Waaheen lacag dhan $20,000 oo shaqaale weynaha wakaalada horumarintu ku darsadeen dibtii ka soo gaadhay dadkii suuqa Waaheen ku hanti beelay. kulankaasi waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Cabdirasaaq Xuseen Albaani, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland Muuse Salaf, barasaabka gobolka Murudijeex gudoomiyaha gudida Berberi Corridor Injineer Ciise Yuusuf Xamari iyo xubno kale oo ka tirsan gudida gurmadka suuqa Waaheen. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland Injineer Mawlid Nuux Ibraahin iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed. waxaan halkan saaka aan doonayna inaan ku wareejino gudigii taakulaynta suuqa Waaheen lacag waxay iska soo jareen shaqaale weynaha wakaalada horumarinta wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. shaqaalahaas iyo wakaalada xaqiiqatan ku suntan waxqabad farabadan iyo gurmad farabadan ka geysatay suuqa Waaheen tan iyo maalintii musiibadu dhacday tan iyo habeenkii musiibadu dhacday waxay ka qayb qaateen shaqaalaha wakaalada horumarinta wadooyinku demintii dabkii ka kacay suuqa Waaheen xaaqistii amba banayntii suuqa Waaheen waxay maantana ku tabarucayaan shaqaalaha wakaalada horumarinta wadooyinku lacag ha iska soo jareen mushaaraadka qaybo kamid ah. shaqaalahaasi waxay kala joogaan goobo kala duwan waxa ugu badnaa shaqaalaha dhamaantood gaar ahaan waxaan ka xusayaa shaqaalaha shaqada weyn ka haya mashruuca Ceeri Gaabo shaqaale daamur iyo cadceed iyo bacad taagan baa waxay karteen inay walaalahood ay la qaybsadaan dhibaatada soo gaadhay. waxay halka markaa karteen inay iska soo jaraan qaybo kamid ah mushaaraadkoogii iyo masaariifii xaafadahooga amba reerahooga. maanta anigoo ah wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo tiimkaygii waxaan halkan ku soo booqannay wasaaradda diinta iyo awqaafta gudidii heer qaran ee u xilsaarayd taakulaynta suuqa Waaheen. halkan waxaa shaqaalaha hay'addu ay iska soo ururisay lacag dhan $20,000 waan doonaynaa inaan maanta ku wareejino gudida. waad mahadsantihiin. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Cabdirasaaq Xuseen Albaani iyo wasiir ku-xigeenka ganacsiga Soomaaliland Muuse Salaf oo ku hadlayay afka gudida gurmadka suuqa Waaheen. aad baan uga mahadnaqaynaa waxayna hadaanu nahay gudida heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta suuqa Waaheen aanu halkan kala wareegnay lacag dhan $20,000 oo ay ka soo ururiyeen shaqaale weynaha hay'adda. aad baan ugu mahadnaqaynaa lacagta intaa leeg oo shaqaaluhu ay ka soo gooyeen mushaarkoodii iyagoo ugu deeqay inay kaga qayb galaan walaalihii ku tabaaroobay suuqa Waaheen. way ku mahadsan yihiin iyagana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka Allah idin saaro. waana 10kii u dambeeyay bisha Ramadaan ee barakaysan ilaahay fadilay subxaanahu wa tacaala. ajarku waa laga yaabaa inuu waxa weeyaan ilaahay u labalaabo oo waqtiyada fadliga badan leh ajarka waa la labalaabaa. taakulada ay ku soo gurmadeen dhibaatadii ka dhacday suuqa Waaheen runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan dareemaynaa runtii culayska ay ku tahay gurmadkaasi iyadoo shaqaalaha dawladda marka hore wax ku filan aanay qaadan shaqo aad u culusna ay hayaan inay haddana iyagoo dareensan dhibta gaadhay iyo waxaad ay leedahay dhibaatada dhacday haddana inay u soo gurmadaan oo wixii ay haysteen ay ka soo bixiyaan maxaan ku rahdaa taakulo iyo gurmad aad baan ugu mahad celinaynaa. waliba sala sheegay hay'addu markii koowaad maaha wajiyada gurmadka oo dhan haday tahay dabaqtiintii haday tahay nadiifintii haday tahay hawliyo dhan runtii aad iyo aad bay uga hawlgaleen aadna way ugu mahadsan yihiin. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ka jisaaysiiyo oo ka abaal mariyo halka ay ka soo saareen meel wax ka wanaagsan ugu bedelo. intaa ka bacdi hay'addan iyo wasaaraddan maanta waxay noqonayaan institutionkii 8aad ee runtii lacag lagu wareejiya. waxa ka horeeyay 7 institution hore marka ciidamada oo 5 ahaa laga reebo waxa ka soo horeeyay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo dawladaha hoose runtii iyaguna lacag taakula weyn runtii iyaguna keenay. marka laga dhigo dawladda dhaxana waxay noqonayaan
institutionkii labaad ama hay-addii labaad ee runtii gurmadkii taakulada ka soo qayb gasha. wadarta guud ee lacagtan waxay ka dhigayaan runtii 1,600,000 ayay maraysaa imka inta dawladdu hay-adaha dawladda kala duwan runtii ay ku deeqeen gurmadka dhammaantood waan u mahad celinaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin runtii taakulo wax ku oola oo kaba badan deeqa badan oo aan filaynay markii rajo badan ka qabanay baa runtii la hadda inaga soo gaadhay aad iyo aadna way u mahadsan yihiin mar kale iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adda iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wakaaladda horumarinta wadooyinka. lacagta guud ee ilaa haatan aad gacanta ku haysaan ma u sheegi kartaa bulshada? waad mahadsantahay walaal, laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan si guud u shaacino wada jira annaga iyo gudiyada kale lacaga ururinaya kolkaa waan shaacin doonaa insha Allah. xamse geelle, telefishinka Saab, Hargeysa. qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber